السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله kusoo dhawaada mowduucani qaaliga oo kamida arrimaha aynu uga hadlayna ee bulshada ku saabsan waxaynu ka hadlaynaa oo halka kan idinku soo gudbinaya walaalayaal arrimo ama dhowr qodob oo asaasi ah oo yani waxyaalaha ugu weyn ee keenay in meherkii uu qaali noqdo dhalinyartuna ay yani ka soo cabaadaan meherkoo qaali noqday wuxuu sababay dhalinyaro badan inay guurka ka niyad jabaan ama ka daahaan ay bataan markaasi jaraa'imta dambiyada xumaanta iyo maaragtay qalbi jabka iyo dadkii oo kala garan waayay qofkii saalixa iyo kii aan saalix ahayn waxaasoo dhan waxay keeneen yani bulshadii isku qasay waa yani guurka oo qaaliga dhigay meherkiisii iyo xiritaankiisii waxyaalahaasna waxaa jira waxyaalo sababa qodobadan ayaan rabaa inaan la wadaago haddii ay jiraan qodobo kale oo adinkuna xasuusataan waxaad noogu soo qori kartaan xagga hoose ee faallada commentiga si annagana aan kaga faa'iideysano adinkuna aad nooga faa'iideysataan arrimahani waa kuwa ugu waaweyn ee keena meherku inuu qaali noqdo waxaana ugu horeeya ma kamid ah faanka dadka isku faanaan dadka xoolaha haysta iyo xoolaha tabdiirka lagu sameynayo iyo heblaayo intaas lagu meheriyay iyo intaas arooskeeda laga dhigay faanka ka dhex jira dadka iyo bulshada wuxuu keenay in meherkii uu qaali noqdo bal xataa la alifo waxyaalo khiyaaliyo gabadhu tiraado $10,000 ama $5,000 iga dhig tii dhahaysa $10,000 iga dhig hadhow $5,000 baan kaa rabaa iyo midii dhahaysa $5,000 iga dhig meherka 2,000 baa kaaga dhigaya magac iyo faan iyo maaragtay heblaayo riix ay noqotay maxaa taa keenaya waa qofku inuu aamino qawaacida iyo tiirarka qofka kale noloshiisa ku socoto inuu noloshiisa ku socodsiiyo dadkii oo dhan baa istiqlaaliyadii baa ka dhuntay marka isku faankan isku faanayo wuxuu keenayaa arrinkaasi oo ah in meherkii uu qaali noqdo waxaa ka mid ah qodobadaasi in rasuulka ilaahay sunnadiisa lagu dayan sallallahu alayhi wasallam waayo sunnada rasuulka haddii la raaci lahaa calayhi salaatu wasalaam wax badan baa xal laga gaari lahaa mushkiladahana meesha yani ka fududahay baa laga abaari lahaa xalkooda marka sunnada rasuulka oo aan lagu dhaqminna qayb bay ka tahay arrinkaasi in yani meherkii uu qaali noqdo waxaa kaloo ka mid a diinta oo aysa dadku baran gaar ahaan guurka iyo macnihiisa iyo howlaha yani ku fadhiyo iyo qiimaha uu leeyahay iyo mas-uuliyaadka ka imaanaya iyo waajibaadka dhalanaya dadku inaysa baran oo iska guursan ay tahay marka diintii oon la barin gaar ahaan arrinkii ku saabsanaa guurka aan la baran waxaa kaloo ka mid a yani damac ka imaanaya dadka qaarkood yani ama gabadha ehelkeeda ama wiilka ehelkiisii gaar ahaan dadka xoolaha haysta waxay rabaan ayagu inay sii joogteeyaan xoola daadiskaas iyo xoolaha ay ku ciyaarayaan iyo waxaan ay yani ka badbadinayaan marka damaca dadka yani qaraabada qoyska labada dhinac ka imaanayana qayb buu ka yahay in meherkii uu qaali noqdo waxaa kaloo ka mid a yani gabadhii la guursanayay in reerkeeda la yaraada lacagtaasi haddaana la siin la guursan mayo damaca laftirkiisu doonitaankaasna asagana wuxuu keenayaa in meherkii uu noqdo mid qaali ah dhalinyartuna ay guur ka nacaan ka dhowna xumaantii ay faafto oo xumaantii ay sahlaato wadooyinka laga helo waayo haddii wanaag iyo wixii ilaahay fasaxay la yaraysto wadooyinkiisana la cusleeyo xaaraamta iyo xumaanta ilaahay diiday ayaa maaragtay fududaanaya marka damaca maadiga ah ee dadka ku badan wuxuu keenay in dhalinyartu ay guurkii qaali ku noqdo meherkii gaar ahaan waxaa kaloo ka mid ah inuusan jirin qaanuun xadidaya meelaha qaarkoodna oo ka maqlay yani qaanuun dowladeed oo haddii alla kuuran yahay ka hor imaanaya waxyaalaha noocaasa yani in la yiraahdo meherku intaa lagama badin karo arooska waxa ku badaxay intaa lagama xaq bay dowladdu inay go-aan ka gaarto u leedahay qaanuun baan jirin laga xabsado waayo arrinkani qofka insaanka xaqiisii buu duudsiinayaa ama gabadhii ama wiilkii xaq u lahaa inuu guursado noolaado ayuu duudsiinaya marka qaanuun xuquuqda u difaaca ayaan jirin qaanuun hadduu jiri lahaa arrinkani salka ka jara waa la badbaadi lahaa ama wax unbaa fududaan lahaa qaanuun ma jira weye waa uu laska wataa dadka qaarkood waxaan arkay meelaha qaarkood wax laga sameeyey inay ka cabaadayaan laakiin waxaad ogaataan walaalayaal oo hoosta ka xariiqtan caqliga inay ka shaqaysisaan ay muhiim tahay gabadhii aad dahdeen meherkeedii intaa lagama dhigi karo maxaa loo xadidayaa ogow ayadoo meherna la siin sharafna loo hayn baa xaaraam caruur looga dhalaya ama xaaraan lagu haleelaya marka wax kastoo wanaagana qayb siduu u fudud yahay ayaa loo qaataa wixii wanaagana fudaydka laga abaaraa nabiyullaahi maxamed laba arrimood hadday isku qabtaan ta fudud ayuu doortay calayhi salaatu wasalaam nabigeena wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam dumarka khayriyaadkoodu meeshu ku jiro in guurkeedu uu fudud yahay uu sahlan yahay
isagoo lagu faraxsan la galay. marka laftirkeeda waa inaad xisaabta gashataan gabadhiinaan aad meherka ku qaaliyeynaysaa dhahaysaa intaa ka dhiga ama aad lacagtaasi dul saaraysaan ogow si easy oo fudud ayaa xaaraan loola samaynayaa hadhowna sharaf iyo karaamo aan lagugu hayn. marka dadku waa inay caqliga ka xisaabtamaan oo ay waaqicana ay ka turjumaan. waxaa ka mid ah waxyaalaha meherka qaaliga ka dhigay caadooyinka iyo caado dhaqameedka dadka qaarkood leeyihiin iyo qabaa'ilka iyo deegaamada kala duwan. caadooyinka qaarkood waxay leeyihiin neef geela haddaan arooska laga qadin aroos ma ahan. caadooyinka qaar waxay ku leeyihiin 10 geela arooskan laga qad wax ma ahan. yacni caadooyinka dhaqamada deegaamada iyo maaragtay qabaa'ilka waxay keeneen qaarkood in meherka uu qaali noqdo ay sabab u noqdaan arrinka noocaas. waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha meherka qaaliga ka dhigay inaan gabadha lala tashan ama wiilka lala tashan oo gabadha ilaa iyada xaq u leh meherka oo iska leh ilaahay waajib yeelaya aan la dhihin baladu maxaad ka leedahay laakiin loo soo gooyo ama hooyadeed ama habaryarteed ama walaalkeed ama adeerkeed ama aabaheed uu yiraahdo intaa ka dhiga meherkaada kaana almuddo inuu ayagu leeyihiin xoolahan ayada xaq u leh iska leh iyada go'aanka gaari kartay oo iska leh. marka iyada in lala tashan ama wiilkii lala tashan oo dhihin war meher imisaad u bixin kartaa awooda waxay keentay tashi la'aantaasi gabadha ama wiilka aan lala tashan in uu meherkii qaali noqdo. ilaahay nolosha dhammaan ha noo fududeeya gabdhaheena iyo wiilasheena iyo dhalinyarteena ilaahay ha asturaya leenahay. aad iyo aad baan mahadsantihiin. waxaan rabnaa in arrimaha bulshada in wax laga dhaho haddana xal loo helo oo hadal kaliya maalin kasta aysan ku soo noqon. noloshaani lacag way dhamaataa. arooska la bardoodinayo maanta oo dhan qoobka laga ciyaarayo waa dhamaanaya saacadahaas uu ku egyahay. dad qof walbana gurigiisu aadaya adiga ninkaadii ama xaaskaadii oo 4 mitir isku hudhan hadhow calabaadka iyo qayladii isfaanaanta adduunka ka soo yeeraya. marka nolosha adinka iska leh noloshiina shar iyo khayr adinka ayaa iska leh noloshiina ka fiirsada ayaa idin leenahay. aad iyo aad u mahadsantiin. barakallahu fiikum. meela joogtaan baa Allah idin barakeeyo.